khaliifa xaftar ma jaajuus maraykan ahba mise waa taliyaha guud ee ciidanka liibiya? khaliifa belgaasim xaftar waa hogaamiyaha ismagacaabay ee ka arrimaya bariga dalka liibiya. waxa uu hogaamiyaa ciidan la magac baxay ciidanka qaranka liibiya oo aan hoos tagin xukuumadda haysata aqoonsiga caalamiga ah ee fadhigeedu yahay caasimadda dalka liibiya ee Tripoli. waxa uu isku dallacsiiyay darajada ciidanka ugu sarreysa ee Philip Marshall si la mid ah isdallacsiintiisa labada wiil ee uu dhalay iyo qaraabadiisa hoose. waxa uu ku wada tixay darajooyin ciidan iyagoo aan soo marin tacliin dhanka militariga ah. xaftar waxa uu muujiyaa inuu majraha u hayo ciidan xooggan oo tababaran si la mid ah generaalka ay saaxiibada dhow yihiin ee al-Sisiga dalka Masar. balse qubarada arrimaha militariga waxay aaminsan yihiin in ciidamada xaftar ay yihiin kaliya dhoolatus iyo indhasarcaadin, halka ciidanka dhabta ah ee xaftar ay ka kooban yihiin maleeshiyaad isaga kala yimid daafaha dunida oo ay midaysay lacagta laga helo shidaalka dalka liibiya ee uu ka safo khaliifa xaftar si ay uga barbar dagaalamaan garabkiisa, sida lagu eedeeyo maleeshiyaadkaas oo ka soo kala jeeda dalalka Suudaan, Chad, Niger iyo guutooyin aadka u tababaran ee shirkadda Raashiyaanka ah ee Wagner. waxaa intaa u dheer taageerada dhan kasta leh ee uu ka helo dalalka Masar, Jordan, Sacuudiga iyo isutagga Imaaraadka Carabta, iyadoo aysan meesha ka marnayn taageerada dawladaha Ruushka iyo Faransiiska. haddaba waa kuma khaliifa xaftar? maxayse tahay ujeedka uu u xidhay dareeska military kadib in ka badan 20 sano oo uu qurbo joog ku ahaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka? khaliifa xaftar waxa uu ku dhashay magaalada Ajdabiya ee bariga Liibiya sanadkii 1943. waxa uu ku biiray ciidanka militariga ee boqortooyadii dalka Liibiya, waxaana xusid mudan in uu kala qayb qaatay Korneel Qadaafi afgambigii uu xukunka kaga tuuray boqorkii dalka Liibiya ee Idris al-Sanusi sanadkii 1969. intii talada dalka Liibiya uu hayay hogaamiyihii ku baxay gacanta shacabkiisa ee Muammar al-Qadaafi, xaftar waxa uu ka mid ahaa saraakiisha militariga ee daacadda u ahaa nidaamkii Korneel Qadaafi. balse Korneel Qadaafi oo lagu yaqiinay aragtiyo ugub ah iyo faragelinta dalalka dibadda ka Liibiya ayaa go'aansaday in uu ciidamo u diro dalka ay dariska yihiin ee Chad oo Liibiya la wadaaga xuduudda dhanka koonfurta ah. waxaana ciidanka Liibiya ee galay dalka Chad uu hogaamiye uga dhigay khaliifa xaftar oo kasbaday xilliga kalsoonidii Korneel Qadaafi. balse xaftar waxa uu ku fashilmay howlgalkii loo xil saaray, waxaana isaga iyo 600 oo ka tirsan askartii uu watay ay ku dhaceen gacanta kooxihii ay dagaalka kula jireen ee dalka Chad. waxaana xaalkii xaftar uu isku bedelay maxbuus dagaal iyo sarkaal darajo lahaa oo hungoobay. waxaase la yaab noqotay markii uu cadeeyay Korneel Qadaafi in dalka Chad uusan ka jirin wax ciidan ah, maxaabiista la sheegayana aysan ba ahayn Liibiyaan. mar la weydiiyay hogaamiyihii ciidankiisa ee xaftar Korneel Qadaafi, waxa uu ku jawaabay, haddii aad ka hadlaysaan xaftarka ariga ku raaca saxaraha waan garanayaa, laakiin ma garanayo xaftar kale oo wata magaca. hadalka Korneel Qadaafi waxa uu ka dhignaa isdiidsiin qayaxan, taasi oo ugu gon lahaa in uu ku daboolo fadeexadii iyo khasaarihii ka dhashay dagaalkii dalka Chad. khaliifa xaftar oo kulansaday xilliga dhibta maxbuusnimo iyo inkaraadii Korneel Qadaafi waxaa xabsiga dalka Chad ka sii daayay sirdoonka dalalka Faransiiska iyo Mareykanka, iyagoo markaa danaynayay inay helaan xubin sare oo ka tirsan taliskii Muammar al-Qadaafi oo la shaqayn kara si xukunka dalka Liibiya looga xayuubiyo. xilliga Korneel Qadaafi oo ahaa hogaamiye ay isdiidan yihiin dalalka reer galbeedka. kadib xabsiga dalka Chad, xaftar waxaa loo gudbiyay dalka Kenya, halka oo uga sii gudbay dalka Mareykanka dhamaadka 80-aadkii. intii uu ku sugnaa dalka Mareykanka, xaftar waxa uu si dhow ula shaqaynayay amaba uu xubin kaga ahaa sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA-da, sida ku cad qoraalada warbixinada dalka Mareykanka. in ka badan 30 sano waxa uu kala shaqaynayay dawladda Mareykanka tab kasta oo lagu ridi karo Korneel Qadaafi, laakiin dhammaantood ma aysan noqon kuwa guulaysta. 2011
waxaa ka dilaacay dalalka carabta kacdoonkii la magac baxay gu'i carabta. si la mid ah dalalkii carabta, liibiya waxaa ka bilowday kacdoonkii ka dhanka ahaa korneyl khadaafi, balse isku beddelay markii dambe kacdoon hubaysan oo ugu dambayntii lagu dilay korneyl khadaafi. khaliifa xaftar oo ahaa sarkaal dibad joog ah waxa uu ku soo noqday dalka liibiya isla sanadka 2011 waxaana uu ka qayb galay dagaalkii xukunka looga tuuray korneyl khadaafi, isagoo xubin sare ka noqday ciidankii la asaasay xilligii kacdoonkii hubaysnaa, ciidankaas oo loo bixiyey ciidanka qaranka liibiya. xaftar oo xilliyada ahaa hoggaankii ciidanka lugta ee ciidankii cusbaa ee beddelay kuwii khadaafi waxa uu gaaray darajada ciidanka ee sarreeye, balse khilaafyo hareeyey kooxihii kala duwanaa ee xukunka ka tuuray khadaafi iyo dilalkii qorshaysnaa oo faraha ka baxay awgeed waxa uu xaftar dib ugu noqday dalka Mareykanka oo uu ka haysto dhalasho marka laga soo tago dhalashada dalkiisa liibiya. sanadkii 2014 khaliifa xaftar waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalka liibiya waxaana uu qeexay in la kala diray golihii sharci dejinta ee dalka, isagoo u sababeeyey la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo maleeshiyaadka, arrintaas oo lagu tilmaamay inay ahayd afgembi qaawan, waxaana si adag uga hor yimid xukuumaddii liibiya ee xilliga iyo taliska ciidanka dalkaasi. balse khaliifa xaftar oo taageero ka helaya dalal shisheeye iyo qaybo ka mid ah ciidanka liibiya ayaa qaaday dagaal lagu hoobtay oo uu ugu yeeray howlgalka Karama, dagaalka oo ugu dambayntii uu ku qabsaday magaalada Benghazi oo dhacda bariga dalkaas ahna caasimadda labaad ee dalka liibiya, taas oo bilow u noqotay xukun lagu tilmaamay keligii talis oo ka badarnaaday kii talada looga tuuray korneyl khadaafi. balse taageerayaasha xaftar waxay aaminsan yihiin in uu mideeyay bariga iyo koonfurta dalka liibiya oo hoy u noqotay xilliga kooxa xag jir ah oo gabadfallo kala duwan ka geystay magaalooyinka bariga liibiya. intii uu dagaalka kula jiray xaftar waxaa si muuqata loo arkayay taageerada wadamada Imaaraadka, Masar iyo Sacuudiga ee khaliifa xaftar. magaalooyinka bariga liibiya waxay Imaaraadku ka sameysteen saldhigyo military oo baaxad weyn, kuwa oo ka saacida ciidanka xaftar duqeymaha iyo basaaska cadowga ka dhanka ah maamulkiisa. dhanka galbeedka dalka liibiya golihii sharci dejinta ee uu xaftar sheegay in uu kala diray waxaa beddelay gole baarlamaan oo la soo doortay kadib markii uu waqtigiisii dhammaaday. baarlamaanka liibiya waxa uu fadhi ka dhigtay magaalada Tobruk ee bariga dalka liibiya oo xilligan gacanta ugu jirta khaliifa xaftar, taasoo ka dhigan in bariga dalka liibiya uu fadhiyo baarlamaankii dalkaas oo uu aqoonsan khaliifa xaftar inuu yahay taliyaha ciidanka qaranka, halka xukuumad wadaag ah oo wada hadal lagu dhisay iyo golo madaxtinimo oo ka kooban 7 xubnood uu fadhigoodu yahay caasimadda Tripoli ee galbeedka dalkaas, waxayna u aqoonsan yihiin khaliifa xaftar dambiile dagaal oo ay tahay in la hor keeno cadaaladda. arrintaas oo sii fogeysay kala qaybsanaanta dalka liibiya oo awooddii dowladnimada ay kala taalo labada dhinac oo mid kasta uu ku doodayo inuu haysto sharciyo dastuuri ah. in ka badan 6 sanadood oo uu xaftar ka talinayay bariga dalka liibiya waxa ay ku tilmaameen hay-adaha xuquuqul insaanka in isaga iyo ciidamadiisaba ay geysteen tacadiyo bani'aadanimo oo baahsan iyadoo aysan jirin cid la xisaabtanta, halka uu noqday baarlamaanka fadhiya magaalada Tobruk mid ku shaqeeya rabitaanka Marshal Xaftar. dhanka galbeedka liibiya xukuumadihii kala duwanaa ee haystay aqoonsiga caalamiga ah waxaa la degay kala qaybsanaan iyo khilaafyo joogto ah iyo hubka oo gacanta dawladda ka baxay, waana tan ku dhiirigelisay marar badan khaliifa xaftar isku dayga ah in uu xukunka ka tuuro xukuumadda taagta daran ee fadhida caasimadda Tripoli si uu u gaaro una hanto xukunka dalka liibiya u midaysan, taasi oo ka dhignaan lahayd haddii ay u suuragali lahayd inuu noqdo khadaafigii labaad ee dalka liibiya. balse riyooyinkii xaftar ee xukunka dalka liibiya waxaa riyo maalmeed ka dhigay kooxaha kacdoonka hubaysan ee galbeedka liibiya, kuwa oo inta badan ah haraadigii xubnihii riday xukunkii korneyl khadaafi. dhowr dagaal oo uu xaftar ku qaaday galbeedka dalka liibiya dhammaantood waxa ay ku dhammaadeen guuldarrooyin. aba ugu darnaadee weerarkii 2019 kadib markii uu khaliifa xaftar hareeyay caasimadda dalka liibiya, dagaal muddo dheer socday kadibna ay u suura gashay in uu gudaha u galo qaybaha koonfureed ee caasimadda Tripoli kadib markii uu xaftar
uu u habar wacday dhammaan maleeshiyaadkii iyo dowladihii shisheeye ee uu taageerada ka heli jiray. Qabsashada Xaftar ee caasimadda Tripoli xilliga waxay ahayd mid aan shaki ku jirin, balse ciidankii taabacsanaa xukuumadda Liibiya oo si adag isaga caabiyay weerarkii Xaftar iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee xukuumadda dalkaas ay la gashay dalka Turkiga ayaa waxa ay bedeleen natiijadii dagaalka kadib markii Turkiga uu u diray dalka Liibiya ciidamo kumandoos ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa oo gumaaday ciidamada Xaftar iyo xulafadiisa, waxaana ay ka dhigneed qabsashadii saldhigga ciidanka ee ugu weyn dalka Liibiya ee Al-Wadya in ciidankii Xaftar ay uga dhamaatay dhammaan magaalooyinkii uu kaga sugnaa galbeedka Liibiya. Muddo kooban kadibna ciidamadii Xaftar waxa ay isaga ruqaansadeen furiimihii dagaalka ee caasimadda Tripoli. Jabkii Xaftar waxa uu niyad jab weyn ku noqday dalalkii taageerada weyn la garab taagnaa, waxaana soo baxay baaqiyo ah in la raadiyo taliye dhaama hogaamiyaha saaxiibka la noqday jabka iyo guuldarrada. Waxaana taa u sii dheer madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo shardi uga dhigay xaalka dalka Liibiya in meesha laga saaro Khalifa Xaftar si loo bilaabo wada hadallo miradhal ah. Haddaba masiir noocee ah ayuu wajihi doonaa marshalka aan quusan ee dalka Liibiya iyadoo aysan maankiisa ka maqnayn qaabkii argagaxa lahaa ee loo dilay Korneyl Qadaafi sanadkii 2011.